haddaba maxay ka dhigan tahay soo jeedinta warbixinta midowda Afrika ee uu ka soo saaray isbedelada lagu sameynayo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya? waraysi ku saabsan Jacfar ayaa inoo qaaday. waxa ii muuqanaya waa wixii aan hore u sii sheegnay oo weliba isla goobjoog aan hadda ka hor halkaan aan ka cadeynay in ay arrintaani dib u dhici doonto fashilmi doonto uuna ku ceeboobi doono ra'iisul wasaaraha taas hore aan usii sheegay marka dee nabar aad filaysid naxdin ma lahan adhiira markana waa filaynay weliba dib u dhici doonaa cabsi kalaa baan ugu sii jirta marka ilaahay cabsidaas ha naga dulqaado mar kale sidii aan kulankii hore uga codsaday oo oqaasha iyo culummada iyo aqoon-yahanada in maanta waddankii dalkii in la badbaadiyo u baahan yahay kooxda fila Soomaaliya ku jirtana bahol dheer ay ka fuuleen oo adiga marka insha allahu rajo allah leena ma inay nimanka meesha noo jooga wax ay maamul hayaan iyo dowladnimo iyo qarannimo iyo xataa islaamnimo xataa bini'aadnimo ma jirto qowlaysato noo soo shaqo tagay oo adiga daaha gadaashii laga maamulayo u muuqdaanba markii xaqiiqda runta laga hadlo dad mas-uuliyiinaba ma aha marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay usha dhexda nooga qabto waa runtii horta markii ugu horeysay oo aan arkayba oo runtii horta markii guddigan xaqiiqaraadinta ee madaxa bannaan qoraalkooda horta waa arkay ayagana jawaabtooda waa arkay marka uu yartaa been ma kuu sheega iga rumayso daawadayaashan ha iga rumaystaan nusac ku dhawaadaan qoslaayo oo lahan dadkan magawaalo iyo mise waa fiyowni haddii marka aan isku barbar dhigno waxa ay nimankan sheegeen guddiga iyo waxa ay hadda nimankan inay ku andacoodaan rabaan waxaa boqolkiiba boqol xaqiiqda u dhow waxa ay guddiga sheegeen marka haddii aad fashilantay dowlad wanaag ku fashilantay oo amni aad ku fashilantay oo adiga dhammaan faashil aad tahay adigu falaari girgirada kaaga maha marka waa fashilanteen dadka iyo dalka ka hor wareega dalku maanta badbaado u baahan yahay haddii aan dib u fiirina xataa qoraalka ay soo saareen guddigaani xaqiiqada runta taabtay oo in ay waxyaabihii dhacay oo dhan oo la arkayna ee amni darrada ay ugu muhiimsaneed oo mar walba isku daydii hadda oo muddo kordhinta ahayd iyo wixii culays dhacay iyo weeraradii dadkii mas-uuliyiinta iyo musharaxiinta loo geystay iyo dhallinyaradan hadda eritrea ku dhuntay oo ku baaba'day baan wixii ilaahay intano inuu ilaahay soo badbaadiyaan jirayna iyo waxaa dhacaya iyo waalidiinta halkasana banaanbaxay sida loola macaamilay 24 juun waxaan xasuusanaa waalidiinta oo dariiqa taagan in inta loo yimid qoryo lagu qabtay ilaa haddaan meeshan ka dhaqaaqin waa idin leynaynaa qaarkoodna adiga $100 iyo wax noocaas inta soo yiri waa raala hadaf xisbiga cali iyo wax noocaas guddigii uu sheegay ra'iisul wasaarahana aanay waxba ka jirin afkiisa maalintaas uu lahaa ay ku ekeen markay bal cidda loo riwaayadeyn karo oo adiga waagii aan yaryareen waxaa dhigi jirnay hebel waa cashareynaya marka dowlad caruur oo aqligu weli aan qaan gaarin ogto cashadina wax cashareyso loo isku dirayso international community-ga ama beesha lixadba oraade dad loo cashareyn kara ma aha haddaa Soomaali aad u cashareyseen international community-ga iyo aada African Union ama AMISOM ma ahaato ama kuwan oo partnerska lagu sheego dowladaha hadda Soomaali ha ahaadaan looma cashareyn karo jadwalku sheegaan beenta oo mar walba la bedelayana waxay ugu arkaan inay ku cashareen karaan marka nimanku casharkiya laga diiday sidaasay marka ugu dambeyntiina dagaalka gobolka Tigray ayaa ku faafay gobolada deriska lah mucaaradka gobolka Tigray ee Itoobiya ayaa fuliyay howlgal ka dhan ah ciidamada taageersan dowladda oo ku sugan gobolka deriska ah ee Afar waxaa sidoo kale xaddii la sheegay afhayeenka u hadlay ciidamada taasi oo furtay furin cusub oo dagaal ah Getachew Reda oo ayaa AFP u sheegay in howlgalkan oo ahaa mid kooban lala beegsaday ciidamo si gaar ah u tababaran iyo maleeshiyo ka soo jeeda gobolka Oromia oo isku urursanayay xuduudda Tigray iyo Afar guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen telefishinka goobjoogna oo anageenta
dhawaan guddigii doorashada uu soo bandhigay been wax waxba kama jirin ujeeddaduna ma ahayn doorasho in caadiyo hal dan ayaa laga lahaa wixii lagu soo harhareegana waxay ahaayeen wax aan waxba ka jirin sidee akhrigu ku geli kartaa oo haddaanan jadwalkaasi doorashada loogu talagelin maxay tahay ujeeddadii laga lahaa jadwalkaasi doorashada